waxaa xaflad ballaaran oo soo dhaweyna ay ka dhacday hoteelka Marriott ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio taasoo lagu soo dhaweynayay ra'iisul wasaarihii hore Professor Cabdiwali Sheekh Axmed iyo wafdi uu hogaaminayay oo booqasho gaaban ku soo gaaray gobolka Ohio. xafladan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa isugu yimid bulshada Soomaaliyeed ee gobolka qaybaheeda kala duwan waxaana khudbado soo dhaweyna ka jeediyay qaar kamid ah qabanqaabiyaashii iyo marti sharaftii xafladda ka soo qayb gashay. khudbadihii soo dhaweynta iyo guud ahaan qaabkii xafladda ay u dhacdayna waa tan. magaalada Columbus munaasabadana waa inoo furan tahay dabcan waa ay xiriirsanaan doontaa waxay isugu jiri doontaa khudbooyin iyada oo markaasi goolka munaasabadana uu yahay inaan dhageysano fariinta uu noo wado mas'uul Soomaaliyeed mas'uul qaran oo wali markaasi u taagan inuu ka sii shaqeeyo xaaladaha aan ognahay in dalkeena uu ku jiro waxyaabaha uu inaga dhihi doono iyadoo dadka halka yimidna ay isaga fariin u wadaan waxaana uu muuqanayaa kulanka mid kala xog qaadasho iyo iswaraysi ku aadan dalka Soomaaliya iyo sidii loo sameeyay lahaa. waad mahadsantihiin mar kale ayaan maaragtay mahad ballaaran oo qalbiga ka soo go'day ayaan idin soo gudbinayaa waxayna la joogo koox fanaaniina dhalinyaro hidaha iyo dhaqanka culumo aqoon-yahano iyo haween mar kale waad mahadsantihiin. salaanka bacdi waxaan ka cudur daaranaynaa waqtiga oo aad iyo aad inoogu yar oo runtii maalin shaqana berita ay tahay haddana aanu daahnay waqtigii munaasabadaan ugu talagalnay inay bilaabato. barnaamijka waxaan isku dayaynaa inaan soo koobno oo aan soo gaabino oo aan waqtigii hore aan ugu talagalnay ka soo gaabino. waxaan shaki ku jirin dad badan oo aad u mudan munaasabadan inay wax ka yiraahdaan inay goobta joogaan. macnaheedu ma ahan qofka iyo labada qof oo loo yeeray inay yihiin dadkii mudnaa inay munaasabada ka hadlaan. dad badan oo aad u mudan baa jooga laakiin waan ka cudur daaranaynaa waqtiga oo aad iyo aad inoogu liita dartiisa. ruux kasta oo muslima waxa waajib ku ah inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u xusuusnaado ogaadana ujeedada iyo hadafka adduunkan asaga u yimid. waxaad moodaa dadka in badan oo ka mid ah inay arrinkaas waxa weeye siday tahay aysan u fahansanin laakiin waa lagama maarmaan in arrinkaas ayada la fahmo. maxaa yeelay maalin waxaa inaga dambaysa nin walba adiga lagu xisaabin doono oo aynan jiri doonin waxa weeye isdaba orodkan iyo isgarbintan maanta aynu ku jirro aynan jiri doonin. taa horta in meel lagu qorto waa dadkii aad xilka u qaaday waa dadkan haddana xilkooda aad u socotay inaad qaato mar labaad marka waxaan kuu soo dhaweynaynaa annagoo ah dadkii reer Columbus
gacmo furan iyo qalbi furan iyo ficil furan inta waan ku soo dhawaanayaa Senior Prime Minister soo dhawow inta markaan ka gudbo waxaan jeclahay in aan u gudbo taariikhda ummadda Soomaaliyeed waxay ka bilaabatay Axmed Gurey waxay ku dhamaataa Maxamed Siyaad Barre Allahu naxariisto ka dambeeyay ma jiro Soomaaliya way burburtay adduunkana dal burbura Soomaaliya uma horeyn dalal badan baa nala qaba burburka asaate dalka soo burbura waxa loo sameeyaa nidaam system baa loo sameeyaa waxay sameeyaan dastuur ay arrimadooda ku ilaashadaan madax baa hogaamiso loo doortaa magaca duqa magaalada Columbus mudane Mayor Michael D. Coleman maamulka degmada dhammaan muwaadiniinta reer Columbus oo dhan 1,300,000 oo qof waxaa sharaf ii ah inaan ku soo dhaweeyo caasimadda gobolkan Ohio ee Columbus ah magaalada 15 ugu weyn waddanka Mareykanka gudoomiyaha madasha midnimada ahaana Prime Minister kii hore ee Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed inaan ku soo dhaweeyo Columbus Ohio waa ka xumahay duqa magaalada uu ka maqan yahay magaalada New York jira caawa laakiin salaantii ran ayuu soo faray iyo soo dhaweyn sidoo kale waxaan hambalyo ka sidaa gobernatoraha gobolka Ohio mudane John Kasich oo uu ku soo dhaweynayo sidoo kale senatarkeena laga soo doorto magaalada Columbus waxaa sharaf ii ah iyo mudnaan inaad ila soo dhaweysaan ilana guddoonsisaan idigoo igu hadlaya muwaadiniinta dhammaan degmada Columbus mudane Cabdiweli Sheekh Axmed markan waxaan u yeeraynaa Dr. Saciid Ciise Maxamuud la taliyihii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo aanu halkan uga yeerayno ila soo dhaweeya Dr. Saciid idinkoo mahadsan soo dhow walaalayaal markii aad fiirisaan waxaad arkaysaa waddankii Soomaaliya cidii ka maqan iyo cidii joogta waxaa xaqiiqa inaysan maantay dowladnimo Soomaaliyeed gacan Soomaaliya ku jirin waana mid loo baahan yahay in aad ku baraarugtaan oo aan doonayno inaan ka wada tashanno oo doonayno inaan wada qaybsanno dareenka noocaas mudanayaal iyo marweyn ma suurtooda inaan ku qanacno in koox yar oo kala talisa oo isu koobtay madaxtooyada inay maamulka dalka 20 sano soo socotay inay haystaan ku qanacaynaa ma suurtooda dad maqaarsaar ah ee madaxa ee gobollada iyo deegaanada macnaha dariska laga soo dhisay inay waddanka sharafkiisii iyo ismaamulka Soomaaliyeed ee la hoos galaan daba dariska ma ku qanacaynaa ma suurtooda inaan fiirsanno oo ku daawano xaaladda adag ay ku jiraan iyo dhibaato adag ee dalka iyo dadka ku jiraan inaad daawano ma suurtooda haddii ma tahay jawaabtiinu xalku waa annaga waana midaan ugu nimid inaad gacan gacantaan nin oday oo reer xamar ah oo iska masaakiina oo reerkiisa dararata ah yaa waxaa loo soo sheegay in gurigiisii midhaa ku yaala meel oo basiibaa la baabacshay marka hadal murtida ayuu ka tegey wuxuu yidhi markii la yifraag waa la jabshay ee wuxuu yidhi waxaa jirta 2 jihaad waxaa jirta 2 jamaan aa jirta yidhi ninna jihaadu ku jiraa ninna jikoydhikoo jabinahu
ولا لما كان وضع الصومالية وحكيت لنا بحب حب رأي إنه وضع مسبدله أو مرة وسميه هي حب هذا إنه جرو نظام كان حد جرا يحاول السيد هاي إذا دومالي نقارن دولة ما إحنا نقارن وعلى الوضع يعني ده نكون الماتي إن كلنا كطيب قاتان دين عادان إنه كترته وحدين تبكي أبياشين أما أوياشين أما أهل كذي وضع الصومالية عشرة سوح بصابره وحلوطة هي ماتي وطن كحوبة هي هيلو هي وأنا ومن اسم الله بهاي مسكحنينا يا مالكينا نرجع سيسان حوجة ونرسل وضع كجرا waxaad moodaan sida sheekh mukhtaar uu sheegay gabaryaal badan baa jiro runtii siyaasiyiin badan oo soo sharaxayo laakiin waa qofka ugu horeeyay maanta madasha noo yimid oo midnimada wata intaba waa u baahannahay marka insha Allah taala waxaan leenahay ra'iisul wasaare hore Cabdiwali Sheekh Axmed iyo wafdigiisa ku soo dhawaada laakiin anigu ka isim ahaan waxaan rabaa in dadkayga shacabkayga ummadayda muwaadiniinta Soomaaliyeed inaan la qaybsado war hadaynaan annagu waxaad u jeedaan madaxweyne wuxuu madaxweyne ku yahay shacab waa idinka ra'iisul wasaare ku yahay waa shacabkii baarlamaan iyo ra'iisul baarlamaan waxay wax ku yihiin waa shacabkii inteenaan arrintan hoosaan u eegno saadaasha wanaagsan iyo dhinaca wanaagsan aan wax maarta ka saadaalino aan soo dhaweyno muwaadin kasta oo raba ummadan halaaga ku sii socota ka saara insha Allah taala mustaqbal ifayana gaarsiya waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad inuu nagu soo dhawaado mas'uulkeena waxaan leenahay Columbus ku soo dhawow Mareykan ku soo dhawow ade ka muwaadinaan halkaagana ka sii wad ragana waxaan leenahay insha Allah dadka kale siyaasiyiinta kalena dadkiina u tura sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina Muhammad هذا البلد ماشي كويلي سببته حويا وحال هذا مرتدانا وحال رسوا عنك فردينا وحبال رسوا عنك سؤالنا هذا السلام بل رسوا وهي ورا وهي حوجة وهي القيلها وعن كرتينا سعيدنا هذا كنت هذا كنا بدن أصومالي إنما نديه كلنا يونهش شيء عبدولنا وعن كرتينا برايم السرقة ورتقلوا أسونا محل هذا كل واحد فاهين نوشيو هل أجينا عندك الصومالي ده عندنا نوشيو وكنتي أقوى مهمة قبل بنا كلامي وحاسو حيتهاي الصومالي نماذو أنه هيسنو لقمكيني يا غير هبل ندولة ما نقنكره وحا دولة نقنكره ولو كان علن كاس يا صومالي لو كان وحانا صومالي لو سو علكنا يا صومالي سلا درادي وإنه كل جن عروش كسرنا قفوا بالمسؤوليات بعصار الشخصيات هذه تمر قد كسيمة لو حالي على واحد ما سمعين كرو واحد ولا سمعين كرو قفوا البو أذوق النفسد على هذا القشة عروش على إنه سمعين كرو إلهينا من توه على واحد في بعض سمعين كرو سلا درادي دمانتي أنا كيف كرو أنا أدعي عينه وطن كأني يومدي الصومالي ذو عاوق ومناك وحوتي بقولك كل وحوتي عيهين oo aeroport kasta adduunka tagto qof Soomaali qaxooti aad ku arkayso oo meel walba adduunka taagan qof Soomaali oo meel u socday meel uu ka socdo mid aan arkayna aad arkaysid aan u ducayno wadankeena mudana ra'iisul wasaare shucuurtayda waa aragtaa waan ku soo dhawaynaynaa waana naga istaashay waxaana ku mutaysatay waqtigii koobnaa oo kugu yaraa annagana nagu yaraa ee aad xilka haysay hogaamintaada aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaya haddaan intaas soo dhaweyntii kaga baxo waqtigu waa yar yahay baa layidhi dabadaa la ishaystaa waana run weeye waxaan rabaa laba kelmo inaan idhaahdo kelmadda koowaad waxaa weeye mudane ra'iisul wasaare qurba joogtaa ka mid ahayd dadka qurba joogta ee dibadaha jooga waxbay tabayaan waxbaa ka maqan cidlay ku nool yihiin maxaa ka soo yeeri doona wadankii bay ku seexdaan kuna toosaan rajadooduna waxaa weeye wadankoodii hooyo oo siduu ahaan jiray iyo sharaftii qofka shakhsiga ee Soomaaliga ah lahaada inay arkaan
waxay ku warhelaan oo ku soo toosaan meeshay rajo ka filayeen qarax baa dhacay madaxdii baa is haysata mushkilaa jidha rajo u muuqatana ma jiro waa muhiim dadka soomaalida ee xilalka haya inay rajo tusaan dadka soomaalida ee dunida daafaheeda ku nool aad bay muhiim u tahay dadka qurbaha ku noolna waxaa ku waajiba in ay taageero ay u wada jiraan oo soomaalinimo leh inay dalka gudihiisii wixii gaari karaana ku gaaraan wixii dibadka joogaana ay ku taageeraan waxaan caawa u mahadcelinayaa dhammaan xafladda sharafta leh dadka soo abaabulay iyo dhammaan dumar iyo rag dadka caawa madashaan sharafta leh quruxda badan isugu yimid aad iyo aad bay u mahadsantihiin cabdiweli sheekh axmed aad baan ugu mahadcelinayaa columbus caawa xafladda quruxda badan kujira dheer qaatay cabdiweli soo dhawow magaalada waa magaaladaadi waa columbus ohio soo dhawow walaalayaal horta aad baa mahadsantihiin kulligiin gabdhaha soomaaliyeed oo quruxda badan dhalinyarada odayaasha cuqaasha siyaasiyiinta maadaama uu waqtigu ugu yaryahay marka hore inaan faallo badan halkan ka galo cabdiweli taariikhdiisii ugu dhoweyd rikoorkiisii ugu dhowaa uu siyaasadda soomaaliya ku soo kordhiyey qof walba wuu ka dheragsan yahay cabdiweli waa ninkii ay 100 xildhibaan 100 baarlamentarian soomaalida ka mid ah markii mooshinkiisa la qaadayey ay taageereen isagoon u ballan qaadin xilal isagoon ku laaluushin lacag isagoo ay ku qanceen only aragtidiisa boqol iyo siyaado xildhibaan oo qabiil walbo Soomaaliya ay ku jiraan markaan aad cadeeyo taas waxa ay ku qanceen aragtidiisa cusub runtii waxa la oran karaa wuxuu ku soo kordhiyay aragti cusub iyo vision cusub political dynamics ka hadda Soomaaliya ka jira oo aan horey uga jirin marka ila soo dhaweeya former prime minister Cabdiweli Sheekh Axmed ila soo dhaweeya gacgaco soo dhaweeya waxaan u mahadcelinayaa walaalahay reer Columbus rag iyo dumarba oo runtii soo dhaweyn iyo sharaf iyo walaalnimo laga soo bilaabo markii aanu airport ka soo degnay iyo caawo hadee sidaan muuqaalkan quruxda badan noo soo dhaweeyay waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa guddigii qabanqaabada oo tartiibkan iyo wanaaggan sameeyo runtii waqti badan geliyay arrintuna waxa weeye soo dhaweyn kaliya ma aha in la isbarto in loo gudbo in la wada tashado waxaan rabaa shirkan iyo shirarka dambe aanu qabsanayno inuu ka duwanaado kii hore waan hubaa in shirarka noocan oo kale oo quruxdan lahay dhici jireen laakiin shirkan waxaan rabnaa in go'aamo laga soo saaro go'aan leanna waxaa weeyaan shirku waa fiican yahay laakiin shir aan wax lagu heshiin aan wax lagu kala tegin waa waxaan aad u dhammaystireen waa qurxan yahay waa fiican yahay laakiin dhammaystir maaha haddaan go'aan gaarana Soomaalidu waxaa la yiraahdaa talada waa heshaa mas kuma sahaysato habsashadu waa fulin islaan anigu qaatay wixii go'aan aan gaarana waa inaan fulina
markaasaanu tallaabo qaadi karraa meeshii aanu taagnayn meel ka duwan aanu tegi karraa wax badan oo idin ogeyn idin sheegi maayo lianna dadku waa xoogaal weeye aad buu xoogaal u yahay dalka mararka qaarkood waxaa nooga xoogaalsan dadka dibadda jooga marka anugu xagga joogay dad baa telefoon ii soo diraayo waxay leeyihiin waxaas moogta maba ogiba kadib baan ogaadaa in wax sax ay yihiin lianna telefoonnadii iyo websaytyadii iyo telefishinadii iyo isgaarsiintii aad iyo aad bay ugu xisanta laakiin waanu isxusuusinaynaa oo waxa jira oo xaqiiqada in la isxusuusiyo waa ay fiicanta saaxiibkay saciid iyo odayadii iga horreeyay waxaan malaynayaa wax allaalayo waxa danteenu tahay heestii soomaaliya tooso oo abwaan cali mire uu qaaday ayay ku dhamaystiran waxaad moodaa maanta inuu sheegayo maalinkaas waxa jiray maanta waxa taagan weeye wuxuu ka hadlay heshiin la'aan wuxuu ka hadlay faragelin shisheeye wuxuu ka hadlay dadka jeclayn dalka jeclayn wuxuu ka hadlay toban ari ah in inta loo qaybsamay goosan walba meel u go'doomay waxaas ka hadla waa waxa taagan weeye maanta waxaan rabaa inaan si yaroo kooban hadalladii aad ka hadasheen oo meel walba yaalla aan u dulmaro si aan isu xusuusino waxa xaaladda dalkeennu ku sugan yahay ay tahay waad ogtihiin dhiiggii bilowday 1990 weliba oo ka yar horreeyey ilaa maanta waa daadanaya maalin kasta dad Soomaali ah oo aan waxba galabsan ayaa la dilayaa waxaa la dilayaa من دورك قبل دورك وذاتك قرع صديه وقاس ذاتك قيمها لها أيها الدليل الروشن أما نبتقول بعدت كان كل عيا ولقحي يبركعي يبطق هذا الشري وصعت الله وعتنصر markii aniga ugu wardambeysay tira koobka dadka qaxootiga Soomaaliyeed wuxuu kor u dhaafayay 1,800,000 oo ku nool Kenya, Yemen, Ethiopia, Djibouti iyo meelaha kale oo Afrika ilaa iyo South Africa oo gaarsan dadka shaqaysta ma waa dadka xariyaha qaxootiga ku jira oo UNHCR ay masruufto barakacayaashan ilaa iyo 1,600,000 ayaa lagu tilmaamaa weliba ayaamahan dambe waa soo kordheen oo meelo badan baa laga soo baxay dadkeenu waa kala qoqoban yahay oo isuma tagaan waxaa dhici karta afgooda inaysan walla weyn u tagin walla weyn inaysan buurha kale u tagin buurha kale inaysan baydhabo u tagin waa kala go'doonsan yahay dadkeenu marka dal midaysan ma aha sharcigii iyo kala dambeyntii iyo sarreyntii sharciga Soomaalidu 20 sano ka hor way lowday dadka hadda cusub ma yaqaanaanba qaar badan baa la yaabaya dad tiraahdo waxaan sharci ma aha adduunkuna sharcigu kala socda anigu barnaamijyada horumarintan ka shaqeyn jiray waxaa jira waxa la yiraahdo development indicators ama heerka bulshadaas ay joogto waxyaabo lagu calaamadsado ayaa jira waxyaabaha lagu calaamadsado waxaa ka mid ah dakhliga dadka soo gala Soomaalidu waa dadka ugu dakhliga dhaqaale waa burbur waxaa kaloo lagu calaamadsadaa sida ay dadku u helaan adeega bulshada iyo heerka uu marayo waxaa kaloo lagu calaamadsadaa dhimashada iyo umul raaca iyo aqoon darrada iyo ardayda caruurta aan iskuulka la geyn
waxyaabaha loo aqoonsado waxyaabaha loo yaqaan millennium goals loo yaqaan Soomaalidu adduunkan meesha ugu hooseysa ay ka taagantay waxa kora oo horumar gaara oo dalkana hormariyo waa bani aadamka hadduu lumo wax xiriq wuxuu ku lumay iyo wax qaxay iyo wax dhintay iyo waxaan wax baran iyo wax umur raacay iyo waxa hadduu noqdo ummaddu waa nimaad guuraysa marka dalka wuxuu ku socdaa runtii xaalad qasanbaas oo ku socda anigu waxaan tegay intaan xafiiska joogay magaalooyin badan baan tegay magaalooyinkaas waan tegi jiray waagii intii dowladdu aysan burburin qaar badan baan tegi jiray dadku isku mid maaha magaalooyinkuna isku mid maaha kuwii aan qiimeeyo maaha dadka rafaad badan baa ka muuqda niyad badan baa ka muuqda cabsi badan baa ka muuqda trauma ayaa ka muuqda qaar badan waxay ka niyad jabeen in Soomaali mar labaad ay dowlad noqon karto horta xaaladda dadkiina iyo dalkiina aad matalaysaan oo magacaad wataan ku sugan yahay waa sidaas weeye musuqmaasuq iyo waxaas lagama hadlayo leanna nololba ma jirto oo musuqmaasuq wuxuu noqonayaa caano iyo biyo ayuu noqonayaa dhinaca wanaagsan baa jira markaa khabaarku waxun keliya maaha dadkii Soomaaliyeed waxaad arkaysaa way ka daareen qabiilkii waxay rabaan inay dowlad noqdaan meel kastoo aan tago qabiil baana dilay bahalkii baana dilay dowlad baa rabaan noqon dadkii Soomaaliyeed waxaad moodaa inay abuurantay fakar ah midnimo adduunkuna wuxuugaa fursad uu siiyey 2012 waxaa la aqoonsaday dalka Soomaaliya la aqoonsaday inkastoo shuruud ay jirto aan ka hadli doono shuruudaas marka runtii marka aad fiiriso aqoonsigaas kadib ilaa iyo 45 safaaradood ayaa xamar soo degay waa tiro aad u badan waxaad garanaysaa marka daraanka iyo hawada adduunku ka leeyahay Soomaaliya marka wixii dal ku noqon lahaay oo dhan waa yaalaan daraanka shacabka waa yaalaan dadkii dowlad bay rabaan midnimay rabaan laakiin waxbaa hortaagan waa waxyaabaha la rabo inaan inta iska wareysano talana ka gaaro markaa talo wax ku oola aan ka gaaro runtii madaxa dadku ka noolyahay lugaha iyo gacmaha iyo waxaasoo dhan caloosha iyo ma shaqaynayaan haddii madaxu uu xun yahay Soomaalidu weli kuma guulaysan inay hoggaan waxqabad dhaba leh inay dhisto kuma guulaysan 24 sano la soo dhaafay hoggaankuna Soomaalidu waxay u macnaysatay madaxweyne ama prime minister ma aha oo kaliya waxaa waa institutions ama hay'adka hoggaaminta baarlamaanka ka mid ah xukuumadda ka mid ah madaxweynaha ka mid ah prime minister ka mid ah lixdii biloodba duufaan baa la kiciyaa dowladaha la gudbiyaa inta la wada joogana runtii dhinacyada lama fiirsado qof walba dan shakhsi ah iyo eryoonaya marka weli Soomaalida kama dhalan runtii dowlad mas'uul ah oo wax ku ool ah oo wax qabad qof gulama bikran majul ana meesh ka shaqeeyay ilaa iyo haddana shaqo haya iska wixii aniga ila rata
middaas waa cudur weyn oo na haysto cudurka kale oo na haysto waxaa adduunku markay dowladaha shaqayn waayaan oo dowladda u shaqayn weydo shacabka kaca oo yidhaahdo waxaan nama anfacayaan war waxaanu sax ma ah shacabkii laba u qaybsamay saddex u qaybsamay saddex u qaybsamay qaar yar oo minority ah oo qaskaas iyo fowdadaas iyo dowlad la-aantaas maslaxad ku qaba oo doonaya inay socoto statuskooda nidaamkan inuu socdo anigu dad baan la shiray maalin anigoo prime ministerki ah waxyaabahaasaan kala hadlay waxay yidhahdeen wareedha waxa aad ka hadlaysaa waxaan ku noolnahay weeye sharci darrada aad ka hadlaysaa waxaan ku noolnahay weeye waxaad noo sheegaysaa noloshayadii ya ma waxaan ku noolnahay weeye waa dad waaweyn bay ahaan dad kale waa dadkaas masaakiinta ah oo niyad jabay oo anigu aan ku tilmaamo dad ceel dheer ku dhacay oo qayliyey wax gacanta u soo taaga xarag u soo tuura waaye fiiriya kulligiin gobollaad ka timaadeen gobollada dalka waxa ka jira dadka idiin soo qaylinayo waxaa weeyaan $100 noo soo tuura mashaariic iyo horumar iyo waxaas cid ka hadlaysa lamaadku waa dad lumay weeye waa niyad jacay dad kalaa jira oo nool oo fiican oo aqoon leh oo dowladnimo soo maray oo in badan oo halkan fadhida ay ka mid tahay waxay yidhahdeen maxaa saa loo yeeli waayo maxay saa u noqotay saas haddii la yeeli lahaa oo yaa yeelaya innagii yeeli lahayn haddaan idhaahno yaa yeelay saas maxaa loo yeelay saas maxay u dhacday yaa yeelaya mid aan wax qabanaynin oo garashadiisa aan wax ku qabanayn iyo awoodda uu leeyahay iyo maalku uu leeyahay iyo mid saxariiray oo dhintay oo naftu hayso sida waxaa soo qaybsay soo goba 5 minutes waa ku dhamaanaya marka shisheeyaha waa la sheegay waa run shisheeyuhu waa la farageliyaa qaar waa noo fiican yihiin qaarna waa na fidneeyaan labadaba waa jiraan laakiin waa dow soomaalida waxay tidhahdaa ri walba shilalka isdhigto yaa lagu qala haddii annagu aan tirsan weynay waa naloo talinayaa hees bayna ku jirtay caalimile oo hadda ka hadlahay waa tirsan weyne oo waa taas dee maxaa loo samayn waayadaas weye waxa meesha yaalla waa inaynu ka baxnaa duruuftaas masajka aan wadno waxaa weye waa inaynu ka baxnaa duruuftaas مسج كلامه عن المحاوي وكبح كرمه إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر الساجن وكبح كودي مسكوها يستا هو فرق جود حي وأد بدين هو أن سكول قدر هين أي كبح وحن كجد ونا دوك بيجرت ما الدنيا وحن كجد ونا بيجرت waxaan naga maqan waxa weeyaan go'aan qaadashadii waxaan rabnaa caawid halkaan go'aan ka qaadano inaan ka baxno arintaas ma ka baxayna ma wada istaagayna intiina nadaad istaagtaan inta kalena waa ku dayanaysaa runtii inta kalena waa ku dayanaysaa in yar oo kooban oo istaagta oo tiraada arintan waa ka baxayna waana ku midaysan inta kaliya way Soomaali waxa ka maqan inta markay ka baxdo magaalooyinka kale Mareykanka oo dhan waa سلمان وحوي مكة أنا وصوق عبنا سد حرمات أي سوج جدنا والشيء دونا وحنا هاي وحوي مربنا وحلي وهشيسين كلمة داسو خلدان تدبوا هشيسين وحوي قف كلا يدين هشيسين هيو مكان dibadda laga kaga imaanayaa Soomaaliya waa la heshiinaya waa dib u heshiin weey annaga heshiinayna
annaga ayaa heshiinayna heshiiskuna wuxuu ka bilaabanayaa shirkaan oo kale arrinta labaad waxaa weeye hoggaanka aan sheegay waa inaan dhisannaa see loo dhisayaa shacabku waa in awoodda loo celiyaa 2012 markii dowladda la dhisay dowladda iyo beesha caalamku waxay galeen heshiiskaas waad maqashaan waxaa la yidhaahdaa new deal ama higsiga cusub anu magacaas sidii saxuya ma aqaan marka Soomaaliya loo tarjumo laakiin Soomaaliya higsiga cusub loo taqaan heshiiskaas wuxuu ahaa 4 sano waxaanu idin siinaynaa wax allaaliyo waxa idin suurtagelinaya inaad doorasho qabataan 2016 inay dhismaan institutions dadku soo doortay oo dadka matalaya wixii 2012 la sameeyay doorasho ma ahayna xul bay ahayd odayaal baa waxay soo xuleen dad xulkuna ceeb buu leeyahay waad ogtiin ceebtu leeyahay waxaa weeyaan markay gacmo yar soo xulahayaan lacagina meesha ay taalo dadkuna u baahan yahay waxa dhici kara waad ogtiin musuqmaasuq waa dhacayo marka dad shacabka matalaya ma imaanayaan dad markaa matalaya wixii markaas lagu soo xulay ayaa imaanaya waana waxa runtii سعود علي جاب كان هو كحشون هذه dadkaas marka iyo shacabku isku waxay mana haystaan in shacabka wakiilo u yihiin waxa la siiyay marka dawladda tan waanu aqbalaynaa waa idin aqoonsanaynaa laakiin 2016 adduunku siduu isu doorto waa inaad isu doortaan si levelka adduunka aad ula simataan waxaad ogtihiin dawladuhu Soomaaliya dambe kale yihiin oo maalgashi bay rabaan oo shidaal in la soo bixiyo rabaayo waxyaabo badan baa rabaa waxyaabahaas oo dhan waxay dhacayaan markay nimanka dadka maalgeliyaashu arkaan in dawlad fadhida oo dadka matalaysa ay jirto markasta oo anigu waxaan ka shaqeyn jiray maalgelintaas ka shaqeyn jiray waa dalal badan baa yaan tagi jiray oo aan tagi jiray inaan soo go'aamino in dalka la maalgelin karo ee kale marka ugu horeysa waxa laga fiiriyaa political governance oo xalida ama xukunka haddii xukunku kaliis yahay maalgelin uma qalmo lianna dadka ku kacaya hadhowtii wuxuu saxiixana hadhowtii dadku waxay leeyihiin kaliis buu ahaa asaga shaqo ku lahaa marka deyntaas bixin mayno haddii xukunku uusan ahayn mid dimuqraadi ahna maalgeliyaashu waxay u arkayaan waxaan fadhiin ayay u arkayaan Soomaaliyana waa darteen waxaan fadhiin weey marka shardiga ku xiraa waxay ahayd in xukunku noqdo xukun shacabka ka yimaado oo la soo doorto haddii aanay dhicintaas ballankii la galay waa la jiray waa lagu fashilay innagu waxaan riixaynaa inaan ballantaas lagu fashilin oo Soomaalidu shacabku uu doorto wakiiladiisa oo aan musuqmaasuq lagu keenin waxaan kaloo ka soo horjeednaa inaan druqsi la sameeyo waqti dheeraysi inaan la sameynin ee shacabka loo ogolaado inay go'aan gaaraan arrintaas su'aasha marka waxaa weeye suurtagal ma tahay in dadku wax doorto laabla ma ahayn daraasad baan sameynay mas'uulka meesha jooga waxaan aaminsanay oo aad u aaminsanay haddii shacabku dadaalo oo inteenaan iyo inta la midka aanu hawl galno qaabka loo horgeli lahaana waa wadnaa oo waan kala tashan doonaa doorasho waa dhici kartaa 2016 mana halabka nooc waa jira doorasho la yiraahdo proportional representation ama nooca saamiga siman markaan xamarka soo baxay waxaanu qabanay shir balaaran Nairobi baan ku qabanay
waxaan isu keenay ilaa 15 khabiir oo dalal annaga nala mid ah doorashooyin ka hirgeliyay Afghanistan, Iraq, Mali, dalal badan South Africa markii apartheid uu tagay Rwanda, Burundi waa isu keenay waxaanu fiirnay duruuftii ayagu ay ku jiraan iyo mid anaga aan ku jiro waanu la tashanaa waxaan rag meeshaan fadhiyay joogay markaas dhagweyne iyo Nairobi nala joogay waxaa soo baxday in haddii proportional representation kaas la isticmaalo oo South Africa 98 dal baa isticmaala oo South Africa iyo Israel iyo Iraq iyo Afghanistan ay ka mid yihiin in doorasho 2016 la qaban doono kadib waxaan isugu yeeray xildhibaanadii markaan kala tashanayna waxay yiraahdeen waa suurtagal xamar baan ku noqday anigu waxaan la fariistay xukuumadda cusub oo madaxda ka yahay Umar Cabdishiid Umar laftiisu waa joogay markaan hor dhignay oo ka doornay ma muuqan wax maartay shaki gelin kara in la qaban karo waxa kaliya shaki gelin kara waxa haddaan rabin doorasho aan rabin inaan dawlad noqono taas waxa weeye maxaan oran jiray digaag qorqabad biyo kuma cabo waxa weeyaan haddii dadku isan rabin waana rabnaa baan malaynayaa ma rabnaa haddaanu rabno doorasho waa geli karaa waa rabnaa waxa weeye haddii la doorto doorashadan proportional representationka waxay ogolaanaysaa in axzaabta la doorto iyo liisaskooda waxayna ogolaanaysaa diasporadu inay codayso adigu codka ka qaybgalaysaa musharaxiin baa jeelanaysa Columbus Ohio Soomaalida joogta qayb bay ka qaadanayaan siyaasadda dalka meeshana lidinku keenaya seejooyin aad codkiina ku siisaan qof adinkeeda ka mid ah ama qof kale oo Soomaaliya jooga aad doortaan taasi way ka dhacday dalal badan Iraq bay hadda ka dhacday Afghanistan bay ka dhacday dadkooda dibadda jooga waa ka qayb galayaan siyaasadda lacag baad bixisaan maalin walba waxbaad bixisaan lacagtaas waa idin baaqan lahayd haddii dawladdaas inta degto dadku shaqaysanayo naftooda ma qabateen xoogaa geerku waad shaqaysaan maalin walba baad telefoon ma yimaadeen marka waa inaad talada dalka ka qayb gashaan si ay u surowda dadkaas inay ka maarmaan walaalayaal fariinta aan wadno middaas weeye على أي حالة دقيقة هذا جشتال اللي هاي وسوق وبيا وحان هذا الكيف سوق بقبيني ده وحان ربنا ونذكرون معها توريزم معها وركان روح قبضنا دقنت إلى على رقم معها إن حفلة وين أنت نلصق أيوه نلصق أيوه تاس رمتي على البدن ما هينو لأن واحد كذلك جدا أغنى waxaan u nimid intaanu tashano dalkeena inaan dawlad u dhisno inaan nabad xumada ka saaro intaas caawin ku heshin karaa heshiisba kuna wixii tafaasiila waan idinla qabsanaynaa waxaanu samayn doonaa haddii alla idmo haddii noo surowdo inaanu haweenka oo energy badan laho wadaniyiina oon ogahay oon hubo gaar ula shiro odayaasha inaan gaar ula shiro dhalinyarada inaan gaar ula shiro dadkii statesmanka ahaa halkan waxaa jooga dad badan oo qaran ahaa statesman waxaa leeyahay dadka qaranka Abdullaahi safiirka iyo abwaanka hadda hadlahaya iyo magaaladaanu taajir waxay ka tahay statesmanka dadka statesmanka ee taajirka ka runtii ma garanayo sabab inaan ayagana gaar ula shiro ilaahay idankiina inta aan tegin oo aan ka bixin halkaan waxaan rabnaa inaan qaraar shacbi ah oo shacabka reer Columbus
aan wada gaaray inaan la tago waa mahadsantihiin salaamu calaykum ugu dambeyntii xafladda waxaa heeso iyo ciyaaro dhaqameedyo qurux badan ku soo bandhigay kooxaha fanka iyo suugaanta ee gobolka Ohio. بصرة محمد، كنتلان TV، Ohio.